إيا برواقضا نمحلا وقبوبا التناسر مانو لغجب النفقادا نحاريستا إيه أنا هاي وينها كنول degmada galgalad gabdhaha nooga yimid bandiirada waa soo dhaweynay ururka haweenka nooga yimid bandiirada waa soo dhaweynay soo dhawaadaan leenahay degmada bandiirada nooga yimid nabadda sidoo kale waa soo dhaweynaynaa assalaamu alaykum waraxmatullah alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh noo suurto galiyay maanta inaan nimaano deegaanka galgalad ilaahay mahadiis socodkayagu wuxuu ahaa inaan taayidino shirkii lagu qabtay dhuusamareeb madaxweynaha dawladda galmudug axmed cabdi kaariye qorqor wasiirka arrimaha gudaha wasiirada xildhibaanada odayaasha dhaqanka saxiixayaasha diilay kuud mahayo suldaankeena guud suldaan cabdinaasir suldaan jaamseed halkan waxaan u nimid marka arintaas inaan taayidino oo bulshadii wacyigelino oo wacyigelintaas maartay aan gaarsiino oo raahno dadkeen waxay soo qaadeen nabad bay noo soo qaadeen nabadaas maartay aan isla qaadano oo aan ayada maartay hirgelino bulshadii maartay deegaanka aan raahno nabadaas inaan qaadano iyo saxiixayaasheena waa isku raacnay sacad hadaan nahay beelweynta sacad waana soo dhaweynay hadaan ciidamada amniga aan wareysanay deegaankaana waxay noo cadeeyeen inay nala qaateen oo ayaguna ay sidoo kale u soo dhaweeyeen oo nabad hadda nin diidahay ma jiro nabadu waartay ayada kugu nool adigu adaa ku nool ayada kuguma noola waxaana leenahay waa mahadsan yihiin si qurux badan bay noo soo dhaweeyeen si fiican bay noo soo dhaweeyeen waa uga mahad celinaynaa siday noo soo dhaweeyeen noo ixtiraameen ilaahay ajar iyo xasan ahayna siiyo dadku waxay iska leeyihiin umadu nabad ma rabto laakiin nabad way rabaan wacyigelin baa dadka ka dhiman deegaamada u dhowdhowna waxa fiicnaa lahayd maarta oo bulshadu in la wacyigeliyo oo deegaamada ku dhowdhow iyo agagaarka dhan la soo wacyigeliyo oo dadka maarta wacyigelinta ka dhiman wacyigelintu ay ka timaado galmudug waxaan u mahad celinayaa oo maarta mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa madaxweynaha galmudug oo qoryuhu ayagoo xabaduhu ku cabaysan yihiin ka saaray oo nabadgelyo dadka ugu baaqay oo wadankii degay oo wadankii xasilay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u aqbalo ilaahay subxaanahu wa tacaala annaga dhan ilaahay noo aqbalo waxaan leenahay hambaliyo wasaaradda arrimaha gudahana waxaan leenahay arrintaada ha ka daalin ha ka caajisin waa inay wacyigelinta maamulada galmudug in alle inta dagaal ka socdo inta fidnada ka socto waa inay wacyigeliyaan waa inay fadhiga ka kacaan ummadda wacyigelin baa deeqda qori afkiis ma deeqo dagaal ma deeqo dhallinyaradeenna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin boqolkiiba boqol assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meeshaas ku ay keenay anagoo nabad qabno marka koowaad waxaan salaamayaa deegaanka galgalad bulshada joogta ciidamada arrimaha bulshada iyo taraakiisha iyo ciidamada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan soo dhaweynta sharafta badan ay noo sameeyeen uga mahad celinaynaa marka labaad waxaan wadnay nabadii madaxweynaha awalan uu qori xabadu afka ka bixiyay idan suldaan cabdinaasir jaamseed iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka saxiixayaasha beesha sida sharafta badan ay u soo qaateen baa anaguna oo la qaadanay ayadii ayaan maanta daba joognay wadanka ku sameeyay sarfeen nabadeed dadka la joognaa dad nabad aad u jecel danaynayana xakabaysan oo waxaan imaanaa meel aad iyo aad maarta dawladda iyo nabadda uga dhaadhacsantaa iyo wacyigelintu marka sidaas awoodeed anaga ururka haweenka degmada bandiirada waxaan u nimaanay meeshaan inaan anaguna nabadii aan maartay ajiibideedii marka uga mahad celinaynaa sida sharafta badan hadda waxaan joognaa deegaankii galgalad soo dhaweynta iyo wanaagga sharafta noo sameeyeen xalay aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh